أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو عشر كيني أفشانات كورسكيني CSS for beginners. In this lesson عشر كان we will learn وحن كبران دونا using class in CSS class كا أما classes كسيدي CSS كلاغو استعمال لها using font family in CSS سيدي font family CSS لغو استعمالها using font weight in CSS يدو font weight كي CSS لغو استعمالها مركا مid ayaan u baran doonaa classes kan ku horeynaa font family kan ku xigsiinaa font weight kan ku xigsiinaa saasoo nagu soconaya marka code-keeni hore ayaan isticmaalnaa code-keeni hore marka imka waxaan la soo baxaynaa notepad keeni ki default simple notepad keeni nagu jiray window waad arkaysaa code-keeni intaas wuxuu ka koobnaa h1 b h2 b kale code-keeni waa kaas marka laba h iyo laba b weeyaan marka imka classes kan ku horeynaa classeska imka b da soo qabo b da dhex galiba click saar waxaad tiraahdaa waxa ku dhex qortaa class equal to blue blue class keenan blue baan u bixinay marka classka blue ga waxaan classes syntax-ka classka lagu bilaabo waa dhibic dot class name magacii classka curly braces for head marka classku muxuu ahaa magaciisi dhibic classka magaciisu waa blue classku waa blue magaciisu marka waa blue baa oranaysa blue waad furaysaa waad xidhaysaa marka waxaad ka elements keeni ayaan attribute value giban ku dhex qorana waan sheegi doonaa waxa attribute yahay iyo waxa attribute value yahay attributing kasto html ku dhigata hadana waan sheegi doonaa color waxaan oranaa blue de semicolon sino save kare waxaan sameynay bd koobaad labadii b ma waa bd koobaad ayaan blue ka dhignay classka blue ayaan ku assign gareynay kabacdi classki blue ayaan CSS keeni waan dhexgelinay dhibicdaas class name wuxuu dhigantay inay waxaan class yahay dhibicdaas dotkaas marka classka magaciisa baad qoraysaa curly braces ayaad furaysaa curly braces ayaad xiraysaa attribute kiba ku qoraysaa color attribute value no blue marka waan eegi doonaa code-ka waad arkaysaa kii koowaad muxuu noqday colorkiisa waa ka blue noo noqday aan ku celino imka ma aragtaa blue imka haddaan kor u yaro socono b waa paragraphkii markii labadii paragraph ba colorkooda white baan ka dhignay white ma ka dhignay imika haddaba b daasoo keliyaata ayaan abaaraynaa b daasoo keliyaata ayaan colorkeedii blue ayaan class ban ku dhex qornay classkaasi wuxuu noo abaarayaa ama noo assign garaynayaa b daasuu noo soo qabanaya b da colorkeedii marka blue marka class wax kasto classku b ku dhex jiro blue gaasi ku dhex jiro colorka iga bedel banidi oo blue iga dhig marka saasaad ku arkaysaa inay wixii blue isku bedeleen haddaan classkan imka kaba soo qaad ka saaraba haddaan classka ka saaro haddaan meesha classka ka saaro aan save gareeyo cashirkeedii hore uu noqonayaa aan bahaleeyo wada cadaan buu noqday maragta cadaan buu noqday marka cadaanka wuxuu ku noqday classki baad ka dhex ayaanad waxba wasayn kareen marka classkaasi aad u abaartid waxaan saa dhibicdaas wax weyn inuu class yahay classka magaciisa baad sheegaysaa blue baad oran waxaad wixii waxaagii baad ku dhex qoraysaa attribute-kii imka blue baan oga dhig waayay hadana background color-kii background color-kana waxaan oga dhigtaa kaba soo qaad white ba aan save karayno control plus s markaan save karayno aan halkan tagno refresh karay waa ima aragtaa color-kiina blue weeyaan background color-kiina waa white waayo waa kaasoo keliyaata imka haddaan sii wadno imka kaba soo qaad blue classkii blue ga ayaan
h1 kana class kana waxaan ku qoray classkiina blue baan ka dhigay h1 kiina blue baan ka dhigay class baan ku dhex qoray eg imka waa akhtar maragta sida isku bedeshay maragta cadaan buu background ki noqday colorkiina blue buu noqday wuxuu la mid noqday kan buu la mid noqday keebuu la mid noqday wuxuu la mid noqday bdaas uu la mid noqday marka h1 marka class keliyata ayaa wuxuu dhan intaas oo elementi hadaa isku dhex qortid classkii oo hal magac oo isku wada mid uu sameeysid classkaas markiliyata aad codekii aad stylekii aad css ku qortay markiliyata wada saameynaya markiliya ayuu wada saameynaya imka hadaa doonaysid bdaas keliyata inuu saameeyo baad ka horeysiinaysa ayaad ka horeysiinaysa hadaa doonaysid classkaasi day soo qabo walibana da classka uu ku dhex jiro bluega intaasun colorkiisana blue ka dhig weeyaan kan kalena backgroundkana white ka dhig imka waad arkaysaa cadaan weeyaan imka cadaankaas uu ka baxaya maragta sidii hore ku soo noqday marka hadaa doonaysid inuu class any class blue ku dhex jiro labadanba blue ba ku dhex jira marka blue ga dhig colorkiisii backgroundkana white ka dhig waad arkaysaa marka dib uu soo noqonaya oo ka dib uu soo noqday maragta si fiican baad aragtaa imka hadan kaba soo qaad hadaba waxa kaloon barnaa multiple classes waxa weeyaan imka hal class baa halkan ugu jira laba class waan ka dhigi karnaa class labaad magac kala underline baan ku qornaa magaca classka labaad waxa weeyaan underline waxaan odhanaa dhibic underline class kasto underline classki underline ka isoo qaweyaan marka waxaan ku qoraynaa text decoration oo ah wixii textiga wixii laga beddelay qurxintoodii waxa tiraahdaa underline hoos calaamadii text decoration underline maragta imka dan tan refresh karayno bluegi maragta underline buu sameeyay waayo h1 eegno hoos u soo yara soco maragta h1 teenan waxani kani waa h1 kan class laba class baa ku jira blue iyo underline marka blue gan wuxuu noo qabanayaa inuu colorkii blue ka dhigo background colorkiina cadaan ka dhigo underline kan muxuu noo qabanayaa wuxuu noo qabanayaa inuu hoosta ka calaamadiyo marka elementi keliyata laba class ama wax ka badan waa la dhigi karaa laba class ama wax ka badan waa la gelin karaa imka kaba soo qaad kan labaad ayaan ku darnay underline classkaasaan kusii dhex darnay laba class ayay noo noqotay marka classkan underline ka aan ku darnay text decoration kana uu qaadanaya waa loo assign garaynaya oo marka isku mid bay noqonayaan aragta isku mid bay noqonayaan ka kale aan baranayna waxa weeyaan font family sida font family-ga imka kaba soo qaad bdaas oo keliyata bda horta classka meeshaba ka saar iska saarba classka kan koobaad classka iga saarba bdaas aan tagaya waa tan bd marka font family-ga waa arkaysaa font family-ga serif baa nooga qoran marka font family-ga dhowr wax fara badan oo font family jira marka waxaad isticmaali kartaa markiliyata ayaad imka kaba soo qaad Arial serif ka doonaysid Algeria waxaad isticmaali kartaa font family badan keliyata waxaad u dhaxdhaxaysiinaysaa comma marka haduu computerku ama local computerku haduu waayo browserku Arialkaas haduu waayo fartan labaad buu ayuu isticmaalaya haduu tan labaad waayo ta saddexaad buu isticmaalaya marka settingka web browserska sida Firefox kuwaas iyo Chrome si wixii la mid ah waad ka heli kartaa font family-yadan ku install gareysan by default ku jiraan
marka koobaad wuxuu Arial ayuu fartii wada bedelaya Arial ayuu fartii wada bedelaya aan eegno waad aragtaa fartii Arial baa loo wada bedelay maxaa loo wada bedelay Arial baa fartii loo wada bedelay marka maxaan nidhi Arial haddaad Arial weydiid sarif iga dhig sarif haddaad weydiid Algeria marka tii koowaad buu helay Arial buu wada bedelay imika fartu sidii hore way ka duwantay haddaan Arial shaa meesha ka masaxna kaba soo qaad aan save karayno bale way isbedelaysaa sarif bay noqotay sarifta haddaan meesha ka masaxno fartu Algeria noqonaysa Algeria haddaan imika ka masaxno aan ka dhigno sarif aan oo far kale aan save karayno aan fartu bale way isbedelaysaa marka hore way isbedeshay imikana markaas saasa far imikana waxaan eegaynaa font weight imika kaba soo qaad underline kan baiskada xagan hoose waxaad ku qortaa burigii dhammaan waxa weeyaan dhammaan tigiskeeni oo dhan iyo abaar oo ka kooban afartaas labada h1 iyo h2 ga iyo labada b waxaan odhanaa font weight ka waa saddex dhowr waxba kala jira marka lighter bal imkaan eegno lighter aan save karayno waa kanba aan refresh karayno fartii aad bay u yaryaraatay by default waxa weeyaan lighter waa fartu daciif ahaata imika waa daciif aan imika ka dhigno bold by default iguna sida aan iyadoo aan font weight ka waxba laga bedelin siday ay markaad soo saaratid browserska ama website-iska ujeeda markaad soo saaratid fontisku sida u qorantay by default waa lighter imika waa khafiif boldigaas aan save karanayno aan eegno aan refresh karayno maragta way weynaatay imika haddaan sidii hore ku celino lighter aan save karayno maragta way yara weynta maragta imika exit noqoto way yaraanaysa marka bold iyo whiter saasi kala duwan ugu dambeeya waxa weeyaan bolder waxa weeyaan ugu dambeeya aan eegno waa bolder kii hore uu ka sii rasiisay waa lighter bolder iyo bold saddexdaasi kale imika maragta uu yara rasiin buu noqday yara rasiin marka saasi kale saddex mid weeyaan waa light bold iyo bolder aan eegno boldigaas marka cashirkeena intaas noogu joogayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu